madaxweynaha xilka wareejinaya waxa kaloon aqbalyeynaya madaxweyne ku-xigeenada dalka soo maray waxa kaloon aqbalyeynaya wufuudda qaaliga ee ka yimid dalalka jaarka nahay Djibouti, Ethiopia iyo Kenya oo aan leeyahay soo dhawaada waxa kaloon aad u soo dhaweynaya martida EU-da looga timid ee ambaasadaradu ku jiraan dhammaantood waxaan leeyahay soo dhawaada waxaan halkan yar taaban doonaa geedi socodkii dimuqraadiyaddani ku soo bilaabatay waxay ahayd waxaa lahaa qorshaheega iyo barnaamijkeega allah u naxariistee madaxweynihii iga horreeyey maxamed xaaji ibraahim cigcad nasiib uma helin madaxweynahaasi inuu hirgeliyo doorashadii ugu horreysay ee nidaamka beelaha lagaga gudbaayey ee loogu gudbaayey nidaamka xisbiyada wuxuu geeriyooday 3 May Pretoria ayuu ku geeriyooday maalintii uu geeriyooday markii la soo sheegay waxaan isugu yeedhay shirgudoonkii labada gole iyo golihii wasiirada waxaan u sheegay madaxweynihii inuu geeriyooday ka bacdi shirgudoonkii waxa la akhriyay dastuurkii isla markiiba waxa la ii dhaariyay madaxweynaha taasoo iyada laftigeedu mucjisad ahayd oo wadamada caalamku ay la yaabeen isbedelka aan samaynayno iyagoo ka shakisnaa maxay dhici doona madaxweynaha hadduu geeriyooday waxaa xusid mudnayd maalintaa kelmad halkaa aan ka idhi madaxweyne cigaal uu geeriyooday hiil ino cidnaba ugama baahno maanta hiil oo ilaahay siba la joogaa laakiin waxa qoreen ugu hiilin karaynaa waxa weeye inaan sii wadno wixii uu ka tagay oo inaan halkaa ku burburin taasoo ula jeeday doorashada iyo dimuqraadiyadda in la sii wado 6 May ayaan allah u naxariistay berbera lagu aasay aad baan u qaybsanay berigaayo mucaarad weyn baa jiray oo gudoomiyaha guurtiga hogaaminayo markaa burco joogay oo markaa xukuumaddii anigu madaxweyne xigakan ku ahaa ka soo horjeeday laakiin nasiib wanaag madaxweynihii markuu geeriyooday dhammaantayo waxaan iskugu nimid aaskii heshiis baana ku dhammaysanay amuurahayagii oo dhan wixii khilaaf jirayna halkaasuu nagaga baxay waxaan ballan qaaday markaa in doorasho toos la qabto iyadoo markaa la yidhi 3 sano ku meel gaadhahay waxaan diiday maalin kuma darsanaya doorasho la galaya waa caalamka waxay noqotay Soomaaliland waxa la nagu qiimeeyay bariga intii ka horeysay inaan xoogaa ka nabad badannahay walaalaha iyaga Soomaaliya laakiin doorashadii aan qabanay waxay noqotay mucjisad fariin u dirtay beesha caalamka oo dhan baarlamaanka Ingiriiska ayay ahaayeen qolyihii ugu horreeyay ee wafti loogu yimid ee taageerada siiyay iyagay ahaayeen anigana waxay ugu marti qaadeen Ingiriiska halkaasoo qayb baarlamaanka ka mid ah aan ka jeediyay qaadiyada Soomaaliland maanta warku intaa markaa ku koobo waxaan xoogaa dardaaran siinayaa madaxweynaha la doortay kow madaxweyne howlqabad waa looga baahan yahay wax kastoo adeega inuu waddanka ka qabto laakiin waxa ugu mudan ee madaxweyne laga rabay waxa weeyaan isku haynta iyo wadajirka ummaddan taasi waxaan kula dardaarmayaa madaxweynaha cusub ee la doortay madaxweynihii horena wixii uu qabtay waan ku ammaanayaa waxa kaloon madaxweyne Muuse Bixi kula dardaarmayaa isagii ku xigeenkiisa madaxweynaha gaar ahaan waxaan kula dardaarmayaa waa inay dadka reer Somaliland ku wada siman yihiin cid gaar ah oo iska soo qadinta oo dadka kale kaaga dhownahay tiraahda waa inayna meesha iman waxa muuqatay ololihii doorashadiina xisbiyaan samaysanay inaan kaga baxsano maaragtaanay beelnimada iyo qabyaaladdu waa waxaynu burburinayaa aakhirkeena ee ay ka dhammaan lahayn walaalaheenna koonfurta Soomaaliya joogi xisbinimada in dib loogu soo dabaalo oo xisbinimadu ay noqoto wax ka sarreeya qabiilka taana waa kugula dardaarmaya waxa kaloo kugula dardaarmaya madaxweyne inaad
la tashato cid kastoo aqoon leh iyo cid kastoo waaye arag ah balse ay noqoto go'aanku mid adiga kaa soo baxa waa inaynan meeshaa jirin cid shaarkaaga gashata oo muusan ka wakiilahay tiraahda waxaan kuu rajaynayaa guul madaxweynaha xilka ka degayana nasiib wanaag iyo caafimaad baan u rajaynayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu